munaasibadan casho sharafta ee lagu soo dhaweynayay Madaxwaynihii Hore Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin oo ay soo qaban qaabiyeen Jaaliyada Reer Somaliland ee wadamada isu taga Imaaraadka Carabta ayaa ku qabsoontay magaalada Dubai waxaana munaasibadan goobjoog ka hoggaanka sarsare ee xisbi siyaasadeedka mucaaradka ee u cid waayeelo waxgarad aqoon-yahano iyo marti sharaf kale waxa sharaf weyn oo ah hadii aanu nahay jaaliyada Imaaraadka ku nool especially Abu Dhabi iyo Dubai in aanu maanta casho yar oo kooban oo aad u kooban aanu u sameynay madaxweynihii hore ee Somaliland Madaxwayne Daahir Riyaale aad iyo aad bay sharaf noo tahay caawa inuu sharfay oo noo yimi in aanu la sheekaysanay in aanu waxyaabo badan ma garanaysaa ka wada sheekaysanay waana mahadsantihiin intiina ka soo qayb gashay anagoo xuseenay isla markaa liiga sidii fiicnaa ee uu ka tagay iyo waxyaabaha imkaan ku faano haddaan nahay Somaliland atadaawul silmi xukunka oo si fiican isugu soo dhiibo waxa isaguna madashaasi hadallo mahadnaqa ka soo jeediyay Siciid Cumar Axmed oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga UCID maanta waxa sharaf inoo wada ah gidigeenba inaan la fadhino madaxweynihii hore ee sunnada dimuqraadiyadda halka soo gaarsiiyay ee sida fiican ee quruxda badan leh ee dhiibay ee khudbadihiisii taariikhiga ah iyo way aragnimadiisii ku wareejiyay dawladdan maanta runtii caawa halkan uma joogno habeen siyaasadeed maaha waa habeen farxadeed waa habeen aan ku xuseyno madaxweynahayagii hore Daahir Riyaale waxa ugu dambeyntii madashaasi hadallo mahadnaq iyo dardaaran isugu jira ka soo jeediyay Madaxwaynihii Hore Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin marka ugu horeysa jaaliyadan Imaaraadka ee caawa casho sharafta igu marti qaaday dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sharaf weyn bay tahay umadaydii inay anoo madaxweyne shalay ahaa maanta qof caadi ah haddana ay qiimaha ay sameeyeen mucaarida muxaafidba halkan inta joogta waan idin mahadnaqayaa dardaarankeyguna waxa weeyaan markastiba reer Somaliland midnimo u baan idinku ogahay inaad mid ahaataan dantiina mid oo ahaataan nabadda mid oo ahaataan sida kaliya Somaliland ku jireysina waxa weeyaan in la is-aamino kalsooni lagu wada noolaado taana waan idin rajaynayaa عبد الناصر خالد سعيد ورقة تلفزيون كعالمي جاي هون كيبل TV مقالة دبي